soo dhawaada daawadayaal galab wanaagsan qodobada xiisaha leh aad galabnimadan aad halkan ku daawan doontaan haddii ay baraali laga helo waxa ugu waaweyn in ka badan 26 askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka Soomaaliland kana soo jeeday beesha Ciise ayaa markan beeshooda isku soo dhiibay haddaba sababta rasmiga ee ka dambayso isoo dhibitaanka askartan iyo waliba sidoo kale hub intee leeg ayay la yimaadeen beesha dhexdeeda oo ku haya faahfaahinta xogtaasi ugaaska beesha Ciise ugaas Mustafa si weyn u soo dhaweeyay askartaasi ayaan rabaa saaxiib yar inaan halkan idin kula wadaago sidoo kale qodobada kale ee Ciise leh aad galabnimadan dalkan ku daawan doontaan haddii baraali laga helo waxa ugu waaweyn ugaaska beesha Ciise ayaa waxa uu markaasi geliyay waxa uu sheegay in la qorayo dhalinyarada ka soo jeedo beesha Ciise lana gelinayo tababar adag si ay u difaacaan maamulka Guban State haddaba tababarkaasi halkee ayaa laga furayaa meelaha sida gaarka ah ee loogu baahan yahay dhalinyarada joogto inay isaga soo xaadirsa ayaan saaxiib yaal halkan idin kula wadaagaya sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh galabnimadan dalkan ku daawan doontaan waxa ay tahay madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay in muddo 15 May markii la gaaro in ay si awood buuxda u la wareegi doonaan magaalada Baydhabo iyagoona hadda la soo warinayo in ay ku soo siqayaan gudaha magaaladaasi Baydhabo haddaba faahfaahinta xogtaas ayaan kula wadaagi doonaa qodobadaas iyo kuwa kale oo aan idin qarinaya saaxiib yaal ku daawan doontaan halkan soo dhawaada anigu waxaan ahay Abdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanaalkayga Macaash Media haddii aad markuu ugu horreysay fadlan kanaalkan rukumo oo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna la garay sina share garow saaxiibada la wadaag mahadsanid daawade hagaag aynu ku bilowno in ka badan 26 askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka Soomaaliland ee u dhashay beesha Ciise ayaa isku soo dhiibay beeshooda kadib markii ay arkeen duulaanka qaawan ee beeshooda lagu hayo askartan waxay markoodii hore ahaayeen askarta difaaca ee maamulka Soomaaliland iyagoona ay markaasi ay qadiyada Soomaaliland ay u dagaalamayeen balse waxa dhacday in dagaal xoogan ay la galaan ciidamada beesha Ciise kuwa Samroon iyagoo dagaal beeleedyadaasi halkaasi ka socday waxa markan ku soo biirtay ciidamada maamulka Soomaaliland waliba si gardara ay ku maagayaan beelweynta beesha Ciise iyagoona ay arintan askarta ka soo jeedo beesha Ciise ay ku dhalisay tuhun iyo waliba sidoo kale in ay maaratay dad jeclaysi ay halkaasi ka jirto iyagoona waxa ay go'aansadeen in difaaci ay uga jireen inay ka soo tagaan oo ay soo difaacaan beeshooda qoriyihii ay wateen iyo hubkii booshaskii iyo waliba sidoo kale qoriga nooca dabajeexa AK47 iyo 7ka iyo garneelada garabka ligiridaba iyo gaadiid dagaal oo ilaa iyo 2 gaadiid ah waa ilaa iyo 2 gaadiid ah ayay markaasi la yimaadeen gudaha awdal iyagoona halkaasi ay isku soo dhiibeen ugaaska beesha Ciise una sheegeen inay diyaar u yihiin inay xaq u dagaalamaan sidoo kalena ay cadawga ka difaacaan maamulka Guban State balse arrinkaas ayaa dad badan fajac ku riday kadib markii lagu arkay ciidamadan maamulka Soomaaliland inay u wareegsadeen dhanka beesha Ciise iyagoona ay aad ugu xumaadeen saraakiishoodii ee hogaaminayay balse meel laga jecel yahay ayay tageen waana beeshoodii dhulka ay xaq u lahaayeen ee maamulka Guban State ayayna markaasi dhaxda gunta dheeshiisaga xireen xaaladdu ayaana naqatay mid markaasi cabsi iyo waliba sidoo kale walwal horle ay ku sii abuurto waxayse markaasi ciidamadan hadda loo badinaya inay fahansan yihiin tacticada dagaal ee ay ciidamadoodii ay ka soo tageen iyo waliba sidoo kale halka ay maaratay ka jilcan yihiin iyo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamadan waxay u noqon doonaan sahan weyn oo ay ciidamada geesiyaas ee beesha Ciise u noqon doonto mar kale guul weyn ay ka gaaraan haddii aan fiirinana wararkeena in ka badan 26 askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka Soomaaliland isla markaasna ay ka soo jeedeen beesha Ciise ayaa la xaqiijiyay inay isu soo dhiibeen beesha Ciise xilli ay sare u kacaysa xiisada ka jirto gobolka Awdal iyo Siril oo dhorkii maalmood ayaa duqasaneed wararkan ayaa sheegaya in askartan ay ka baxeen markaasi ay ku baxeen fariisamadii ay ku sugnaayeen iyagoona si toos ah ugu biiray ciidamada beesha Ciise ee deegaankooda ay ku soo jeedeen taageero buuxdan ay u muujiyaan beesha Ciise taas ayaa muujinaysa kala qaybsanada sida markaasi si xoogeysanaysa oo ka dhaxeeya ciidamada maamulka Soomaaliland tani waxa ay niyad iyo dhabarjab xoogan ay ku noqon doontaa ciidamada beesha waa ciidamada maamulka Soomaaliland maadaama ciidamadii ay ku tashanayeen qaybtoodba ay u wareegeen dhanka maamulkooda qodobkeena kale ee xigana haddii aan fiiriyo ugaaska beesha Ciise ugaas Mustafa Cabdi Ibrahim ayaa sheegay
in askar loo qori doono dhalinyarada kasoo jeeda beesha ciise inay isu diyaar garoobaan la dagaalanka maleeshiyaadka beesha Samaroon iyo waliba sidoo kale ciidamada maamulka Somaliland. Ugaaska beesha ciise ayaa sheegay in dhawaan ay markaasi rajeynayaan in ay qortaan ciidamo xoog badan oo ay doonayaan dadka deegaanka inay qayb ka noqdaan. dhalinyarada ayuu ugaaska beesha ciise ugu baaqay inay u soo diyaar garoobaan difaaca dalka iyo deegaanka ee maamulka Goban State maadaama awoodihii ugu badnaa ee maamulka Somaliland iyo kuwa maleeshiyada beesha Samaroon ay isugu yimaadeen goobta. ciidamadan ayaa la sheegay in tababar adag ay qaadan doonaan sidoo kalena qayb lixaad leh ay ka qaadan doonaan dagaalkan xoogan ee beesha ciise ay ku jirto. dhawaan ayay ahayd markii ciidamo gurmad ah ee markaa beesha ciise ka soo jeedo ay soo gaareen gobolka Awdal iyo Sirelba kuwaas oo hadda dagaalkan qayb lixaad leh ka qaadanaya. balse ugaaska beesha ciise ayaa sheegay inaysan ku filneen askartan hadda furimaha hore ee dagaalka ku sugan isagoona uu sheegay in qaybtooda kale ee halkaasi lagu soo biiriyo si ay qayb lixaad leh uga qaataan dagaalkan u dhaxeeya beesha ciise iyo waliba sidoo kale Samaroon. maalmihii u dambeeyay waxa ay halkaasi ka jirtay xaalad cakirnaana dagaal xoogan oo askar badan ay ku dhimatay ayaan halkaasi ka soconaya. inkastoo maamulka Somaliland ay horey u doonayeen in ay waan u soo galaan balse laakiin xisaal iyo waliba sidoo kale awood sheegasho ay ku bilaabeen dhageystayaasha beesha ciise iyaguna waxa ay go'aansadeen inay isaga dhiciyaan oo dhigta dhiigga u daraan. ugaaska ayaa sheegay in dhalinyarada ay diyaar garoobaan xoogooda iyo maalkooda loogu baahan yahay in deegaanadooda iyo waliba sidoo kale dadkooda ay ku difaacdaan. beesha Samaroon ayaa markii looga adkaaday dagaalka dhan walba waxa ay bilaabeen kufsashada haweenka, dilida maatada iyo caruurta iyo waliba sidoo kale inay guwaan beeraleyda beerihii ay lahaayeen ee kasoo jeeda beesha ciise. balse ugaaska beesha ciise ayaa sheegay in waxaasi oo idil aan la isaga dabahari doonin ay noqon doonto inaysan iyaga rabin bermageedada iyo waliba sidoo kale inay kufsadaan ama inay caruur ay dilaan in dad beeraley ay dhibaateeyaan balse iyaga kuwa dagaalka ku jiro ay markaasi cashar fiican ay u dhigi doonaan. xaaladan ayaana sii markaasi kacaysa iyadoona marba marka kasii dambeyso askar laga laynayo beesha Samaroon iyo sidoo kale maamulka Somaliland hub iyo saanad military laga wareegayo. dhanka kalena haddii aan fiiriyo ugaaska beesha ciise ayaa sheegaya in qorshe cusub lagu xoojinayo awoodda dhalinyarada ee isagoona sheegay inuu furmi doono tababar si adag waa tababar ciidan oo adag si ay uga qayb qaataan difaaca. wuxuuna ku tilmaamay maamulka dhawaangalka ah in maamulka dhawaangalka ee Goban State ay arintaasi ay muujinayso in abaabul ciidan iyo waliba sidoo kale si xawli ah uu ka socdo deegaanada iyo waliba sidoo kale dagaalada ka socdo beesha Samaroon iyo beesha ciise oo dhaxeeyo. xaaladda ay hadda halkaasi gobolka Awdal ay ku sugan tahay ayaa ah mid aad u cabsi badan maxaa yeelay dhowrkii maalmood ee halkaasi dagaalays xigay ay ka dhaceen. markana beesha ciise waxa ay mar kale sii raadinaysaa in askar tiro badan oo ay tababar siiso oo ay ku dagaalamaan si ay xaaladooda iyo waliba sidoo kale midka dadka deegaankaba ay u difaacaan. maamulka Goban State ayaa la rabaa in laga hirgeliyo waqooyiga dhanka Awdal iyagoona ay doonayaan in maamulka Goban State la hirgeliyo sidoo kalena buugga heer ciise markaasi la dhigo xafladiisa sidoo kalena deegaanada iyo maaragtay degmooyinka iyo maamulada qaarba inay si weyn ay u hirgalaan oo ay dadku ay ka difaacaan. ciidamada geesiyaasha beesha ciise waxa ay hadda ku raad joogaan ama ay baxsanayaan cadowgooda ee beesha Samaroon iyo waliba ciidamada maamulka Somaliland oo dhowrkii bilood u dambeeyay dagaalkan qayb lixaad leh ka qaadanayay. qodobkeena ugu dambeeya daawadayaal haddii aan fiirinana madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay in 15 May markii la gaaro ay magaalada Baydhabo ay si xoog ay ku qabsan doonaan. madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa wareysi gaar ah uu siiyay kanalka lagu magacaabo Geed Fadhi waxaana uu wareysi uu soconayay muddo 2 saacadood ah oo uga hadlayay xaaladii guud tan iyo bilowgii siyaasadeed ee xilka madaxtinimada ee madaxweynaha Koonfur Galbeed loo magacaabay ilaa iyo dhamaadkiisa ee kaga markaasi uu diyaarad kaga duulay magaalada Baydhabo haween madow ayuu sheegay in wax badan oo qarinayay uu bulshada la wadaagay. waxyaabihii aadka u cajiibka leh uu sheegay in uu ahaa in isaga maaragtay iscasilaadiisu ay ka dambeysay ama bartiisa Facebooka qoraalka la soo dhigay ay ka dambeysay ahayd in bastoolad madax looga hayay
taliyihii ciidamada asluubta Soomaaliyeed ee taliya shub xaaladaasi oo idil ayuu ka sheekeeyay iyadoona wareysigaasi aan halkan lagu soo koobi karin balse muhiimadda ugu weyn waxa uu wareysigaasi u ahaa in 15 May madaxweynaha xaq uu yahay markaas sida sharciga lagu doortay Koonfur Galbeed uu yahay uusan 15 May markii la gaaro madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ay noqon doonto in magaalada Baydhabo ay si xooga ay kula wareegi doonaan madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay in wax la isaga dawhari doonin ay ahayn arintan isagoona hadda ka wada gobolka Gedo inay ciidamo ay halkaasi ay ka soo gurbinayaan iyagoona ay hadda durbo magaalada ay ku soo siqayaan ayna doonayaan in ay si awooda ay ku qabsadaan 15 May oo ka harsan dhowr markaasi maalmood oo ay markaasi ay ka mid tahay 11 maalmood ayaa hadda la rajeynayaa inay qayb lixaad leh ay ka qaataan in ay markaasi ay la wareegaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa muddaxileedkiisa waxa uu ku egyahay 15 May oo ah maalinta dhalinyarada adduunka ama dhalinyarada Soomaaliyeed baan dhahno waxaana ay doonayaan inay qayb lixaad leh ay ka qaataan markii uu Xasan Sheekh Maxamuud uu waqti muddaxileedkiisa u dhamaado in Koonfur Galbeed si awood ay ku qabsadaan ayuu doonayaa lafta garan balse su'aashiis weydiinta mudan ayaa waxa ay tahay lafta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma Koonfur Galbeed ayuu lafta garan ka ilaalin doonaa mise madaxtooyada Villa Soomaaliya ayuu ka ilaalin doonaa mucaaradka dawladda Soomaaliya daawaday haddii dalkan la soo gaartay xataa qof qalbi wanaagsan waxaan asla kaaga codsanayaa inaad kanalkan soo follow garisid muuqaalkan la garay siin shargada saaxiibada wadaag oo ku meesantay daawashada muuqaalka meesanayn